jaaliyadda Somaliland ee waddanka Norway ayaa soo qaban qaabisay xafladda munaasabadda sanad guuradii 34 ee 18 May maalinta la soo noqoshada madax bannaanida Somaliland kana dhacday magaalada Oslo. xafladdan oo gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland Siciid Barre Weerar ku soo dhaweeyay safiirka Somaliland u fadhiya Norway, mas'uuliyiinta xisbiyada wadani ka iyo kulmiye ee Norway. xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada iyo deegaanka ee isla waddanka Norway iyo dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira caruur iyo ciroole. waxaa wajiyada dadka ka soo qayb galay laga dheehan karayay farxadda iyo dhoolla cadaynta. ka hor intaanay shacabku ciyaar iyo damaashaad ku muujin farxaddooda, waxaa hadalla kooban goobta ka soo jeediyey mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay, iyadoo hadalkana uu furay gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee Norway mudane Siciid Barre Weerar. qaranka iyo muwaadiniinta hoos yimaada annagu markasta waxaan ku dadaalnaa inaan isku hayno muwaadiniinteena hadduu ka tirsan yahay xisbiyada qaranka ku jiraan ama siyaasiyiin ama meelo kale dhammaan isuga ahayn waa jaaliyadda anaga marka xaqaad baan ku shaqayna munaasabadda waxaan laga faa'iidaysanaya aan ka salaamaya xukuumadda cusub ee dhawaan doortay in ilaahay u fududeeyo waxqabadka dadkeeda iyo dalkeeda. waxaa kaloo si gaara u salaamaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Cali Wacdi, golaha fulinta ama golaha wasiirada, labada gole, golaha guurka iyo golaha wakiilada iyo dhammaan ciidamada qaranka ee kala duwan. waxaa halka sii badan maayo saaxiibkiisu ahay run ahaan waxaa wiilaaweyn uu ku daro inuu yahay madaxa dhaqaalaha ee jaaliyadda. markaas sidaa iyo wada shaqayn wanaagsan. kadib waxaa hadalka qaatay safiirka Somaliland Maxamed Aadan Liilan. Somaliland ha noolaato. maanta waa maalinteedii aynu dowladnimada yeelnay Somaliland 34 sannadood baa inta ka soo wareegay. waa wax aad loogu farxa maanta inaynu u dabaaldegayno nabadda waddankeena, horumarka waddankeena iyo waxaynu qabsanay. gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa isaguna hadalka qaatay mudane Rashiid Muuse Ismaaciil. gudoomiyaha xisbiga ka ah ayaa isaguna hadalka madasha ka yidhi intii loogu talagalay. Maxamed Daahir Diriye. xafladan ay timid waa garasayta Somaliland ayaa garasaytahay aad ugu faraxsan. gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee waddanka Norway Maxamed Cabdi Ismaaciil ayaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay, waxaana ka mid ahaa hadaladiisii. waxaan salaamayaa hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda reer Somaliland meel ay joogaanba, gaar ahaan madaxweyneheena, madaxweyne ku-xigeenka, golayaasha baarlamaanka, ciidamada qalabka sida meel ay joogaanba iyo xaasiskoodaba. waxaan leenahay hambalyo 18 May. siyaasi Faadumo Cali Madar oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga shaqaalaha ee talada dalka Norway haya ayaa iyaduna ka hadashay muhiimadda ay leedahay xuska 18 May. run
xafladan oo ahayd mid aad iyo aad loo soo agaasimay oo dadweyne tiro badan ay kasoo qayb galeen isla markaasina ay farxadooda iyo damaashaadkooda ay ka qayb qaateen caruur iyo ciroolaba waxay ahayd mid ay dadka reer Norway aad u soo dhaweeyeen maalintan waa warka oo idinka imanaya magaalada Oslo ee dalka Norway.